أنا وريتين هيا أنا وحقات قاضي هيا هو أنا كذا كيبا وحقبنا هيا جو كذا أنا كوس كينا هيا كابن قبنا هيا عاير بموريتنا هذا نقد هذا بقى أنا جوان حقف كوباهن وايو قلادات كذا دقة آمن سنتهاي واحد جرمها أباها وحو آمنة أنا جينا هاي نحن لكن صدق وايدريمي كرتاني جينا هاي قف ونكسن محايلة مالكي فكي قعنت أنا وقاضي واحد مالن وكبريا هاي لجن maalin kale jawi kale iyo meel kale iyo lejan kale yaa kale waa lejan ciraaq cabdi cilmi magac maskiinka ma ahan maalna mawla suu qabaa kusoo dhawo hay lejan waa mahadsan tahay aad baan idin salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkayga warkaysaanba dad mahadsan tahay dhawa aad baan kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga qaaliga sida aad noo siisay oo aad noo soo ajiibtay barnaamijkan hay lejan waxaan doonayaa inaan kugu weydiiyo 10 su'aal oo isugu jira qaar kaftana iyo qaar kaleba waxaan rajaynayaa inaad diyaar noo tahay diyaar waa noo hay laakiin su'aalaha baraf ka dhigno koo waxaa jira tiitiin camal iga yaree xoogaa insha Allah waan ka dhigi doonaa diyaar Muhammad marka ugu horeysa su'aasha koowaad aan rabo inaan ku weydiiyo Ciraaq waa kuma horta Ciraaq bal inaad la wadaagto asxaabta horta magacaygu waan sheegay waa la wada yaqaanaa inta aan aqoonina barasho wanaagsan Ciraaq Cabdi Cilmi waceysna oo ku sii daraa waxaan ku dhashay degmada Balcad hadii la yaqaano dabcan waa la yaqaanaa Soomaaliya wada taqaanaa waxaan ahay shakhsi turjumaad falaanta noocyadooda kala duwan ayaan turjumaa Mareykan musalsalada Hindiga Turkida iyo wixii la halmaana oo luqadda Soomaaliga laga dhigay xataa kuwa jeekay jaaniyo yariiska maaragtay maxaa la kartoonka whatever barasho wanaagsan waayahay su'aasha labaad ee aan rabo inaan ku weydiiyo Ciraaq ma xasuusataa filimka aad ku noqotay legend actorkaad u hadlaysay ma noo sheegi kartaa adigoo la wadaagayo faniskeena horta ma santa su'aal aad u qurux badan loona baahnaa inaad i weydiiso oo aan rabo inaan ka jawaabo si anigu inta badan dadka waxay igu wada yaqaanaan actoro iska normal ah sida hadda tusaale aan Ram Jaran oo kale Allu Arjun oo kale Mahesh Babu oo kale inama kan madaraaska oo madmadowga ah dhan ayaan u wada codeeyaa wallahi hadda kuma dhigi karo filim noocaas oo kale aan aniga dhulku soo dhax laakiin inkastoo aan Ram Jaran ay bulshada badan aad igu baratay iyo ninka yiraahdaan Milan Mishra oo Brazil aad baan fahnay marka laga tago Ram Jaran ma jira actor kale oo aad u hadasho oo dadku inta badan aanay kugu aqoon laakiin aad maanta u sheegayso bulshada waa uu jira waa sida tusaale ahaan Mahesh Babu oo kale inta badan dadka ma yaqaanaan aan u hadlaa maxaa loo yaqaanaa Mahesh Babu maxaa laga wadaa Mahesh Babu anigu ma aqaan anigu horta luqadda Hindiga ba aqoonin ba kaliya waxaan waa lay turjumaa saan dhaha la yiraahdaa inta kale si macaanayaan waa intaas waayahay waxaan rabaa Ciraaq 5 number inaad qabsato 5 number waa 5 number oo sifooyin wanaagsan ka turjumaya waa 1 ilaa 5 shantan ba ku dhigana shantaad ku dhigantaa nasiibkaaga aan ayaga wuxuu noqdo runtii waxaa tahay ninan aan isla qabweynayn qof waxaa tahay dadka ixtiraamo oo qab lahayn oo kibir badnayn number 5 markaan eegay nasiibkaaga saas ayuu isoo baxay adigu ma malaynaysaa inaad nooca tahay waa u samaysanaa xaqiiq wallah waayahay waxaa kaloo jira 5 kale oo iyagana ka turjumaya sifooyin qaldan oo aan rabo inaad qabsato waa 1 ilaa 5 koowan qabsaday waxaa tahay Ciraaq nin kibir loo ah arrinkaas maxaad ka oranaysaa nasiibkaas kibiro markii la yiraahdo fasiraada iman karta si fiican warheeda shakhsigan warseeta caafimaadkaada ka warno kala ama dagaal aad jiro kala ama hoolo ninkan sameeyo kala kibir way noqon kartaa si fiican laakiin anigu shakhsi kibir badan oo ummadida Soomaaliyeed ku kibir badan ma ah waayahay su'aasha lixaad aan ku weydiinayno Ciraaq sawir kooban naga sii sifooyinka laga rabo qofka wax codeynaya sifooyinka looga baahan yahay sawir kooban naga sii waa inuu marka hore qofka ahaadaa qof maskax furan waa inuu ahaadaa qofka qof akhlaaq leh waa inuu ahaadaa qofka qof walaaladiis waalidiintiis intaba ay ogolaasho ahaan markaasi uu ka wato loo ogol yahay qofku waa inuu ahaadaa qof wax bartay qofku waa inuu ahaan karaa qof shaqadiisa daacad u ahaan kara waa intaas su'aasha toddobaad
ka soo qaad inaad tahay raam jaram anna aan ahay booskii see rabtaa isla markaana kaa qaaday atirishadaada sidee baad cod caynkee ayaad ugu hadli lahayd 120 soddon ilaa 40 ciddaa doonta sooda waxaa bulan ugu gabadhan neha inaan gurigeeda dib ugu celiyo iga raali noqon gabadha waa diyaar iga tahay inaan kuu soo celiyo waaba isku naxayba saad maaragtay maasha allah waa hanjabay waa hanjabaad cajiib ah okay su-aasha sideedaad iyar nala wadaag adigu u hadlaya ninka la yidhaahdo fiigsane oo aan aaminsanahay soomaalida in badan inaanay garanayn dad badanna ay dhegaystaan ninkaa fiigsane adigu u hadlaya bal iyar la wadaag bulshada anaa wareejinahaya anaa wax qaadqaadahaya hoogayo arag hadda kiibaa wax qabanahaya joog hadda anaa kuus keenahaya kaabaan qabanahaya aayar baan wareejinaha hadda naga daada baa oo xoogayaan aad baad noogu basisay wax yar markii fanas la yiraahdo qofka markii shaqada uu ku dhex jiro iyo markii wax uu markaas xoogaa wareysiyo kala barnaamijyo kale ku jiro waa kala qurux badan tahay si fiican marka Ciraaq la yiraahdo jiliinka qofka jiliinadu way kala duwan yihiin qaab caynkee ah ayuu qofka laga doonayo inuu yaqaano tusaale markaad farxad muujinayso markaad xanaaq muujinayso iyo markaad lafteeda aad ilmeynayso qaabkaasi sidee dadku u samayn karaan qofka horta ugu horeyn waa inuu qosli karaa oo inuu keeni karaa si fiican waa inuu maxaa la yiraahdaa guuxi karaa qofka waa inuu qofka kaftami karaa waa in uu qofka maxaa la yiraahdaa jiliin walba uu raaci karaa si fiican waa intaas okay haddii aan kula kaftamo legend Ciraaq waxaa kuu soo galay hooyada hooyo aabaha aabe iyo atirisha ama xaaskaaga iyo xaaskayga hal kursi ayaana meesha yaala yaad uga kici lahayd oo kursiga laba qofood ma qaada kursiga ma qaado hal qof buu qaadayaa ma hooyaad uga kacaysaa ma aabahaad uga kacaysaa mise atirishadaad uga kacaysaa inkastoo saddexdoodaba uu ku wanaagsanaa saddex kursina dhahdaa fiicnaad ma wala sadhibi lahayn ma jiro meesha okay ma xuma labada waalidna labada kursi inkastoo ay mudnaa lahaayeen si fiican dee hooyadii baan sii lahaa kursiga koowaad sababta hooyada ugu doortay maxay tahay hooyo waa wada naqaanaa si wanaagsan aabe saddex jeer ka xaq badan tahay dadaal haddii la yiraahna amaba dhanka caruurta ayadaa number 1 ah hooyo dabcan waa dareemi kartaa waxaan sheegaya ma faahfaahin uma baahna waa intaasi inta la doonayo su-aashii jawaabteeda wuu gartay legend Ciraaq waayo halkaas waxaan ka fahmaynaa in hooyadu ay tahay qofka ugu xaq badan xagga diiniga marka laga jeer inay ka xaq badan tahay oo kale aabuhuna uu yahay 2 jeer waayahay su-aasha ugu dambayso number 10 waxaan jeclaan lahaa inaad na tusto oo na taabsiiso adigoo film u turjumayo isla markaana jacaylkaaga la hadlayo aad baan u jeclaan lahay mar kale inaad noogu soo celiso neha aniga waan ahay qof kuu baahan waayo qaladaadkaad adiga aaminsan tahay wax jira maaha aabbaha wuxuu aaminay aniga inaan ahay nin xun laakiinse dabcan way dareemi kartaa aniga inaan ahay qof wanaagsan maxaa yeelay maalinkii fakii gacantaan u qaaday waxay maalin waa ku barya waa maasha allah taas oo waa soo gaabshay waxaan maraynaa guntiga gabagabadii hal iyo laba maxaad oran lahayd barnaamijkan High Legend horta barnaamijka kaamil horta aad baan horta ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdano ama ka qayb qaatano waan ku faraxsanahay barnaamijkan High Legend waa barnaamij cusub waa barnaamij aad u qurux badan waxaan rajaynayaa halkan inuu ka sii socon doono asxaabta dambe iga dambeysay ee lejanada ah sidoo kalena waxaan leeyahay dee waa barnaamij qurux badan hala sii kala qurxiyo dhalinyarada kale Soomaaliyeedna waxaan leeyahay faniskuna waxaan leeyahay malaayiin jeer aad baad ugu mahadsantihiin taageernimadiina qof walba wax ahna idinka ka dhiga maanta heerkan taaganahay idinka iga dhigteen malaayiin jeer waan dadaalay balse dadaalkayga waxa ka horeeyay idinka sacabkiina channelkana waxaan rajaynayaa dadku waxay yiraahdaan badanaa farta saasa lagu dhaho barnaamijka idin soo jiidi doono haddii Ilaahay yiraahdo thank you intaan barnaamijkan mid la mid ah aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafinaa sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyo nooli kulantay